بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta noo soo gabagaboway shir muddo 2 maalmood socday oo looga hadlayay dib u eegista qorshaha horumarinta qaranka run ahaantii wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed waxay u ahayd sharaf weyn in shirkan lagu martiqaaday waxaana uga qayb qaadanay si wanaagsan run ahaantii waxaa ka soo qayb galay dowlad goboleedyada qaybahooda kala duwan labada maalmoodna bandhigii la sameeyay wuxuu ahaa bandhig aad u wanaagsan iyo halka uu qorshihii horumarinta qaranka uu marayay ee 3 sano la soo dhaafay loogu talagalay 2017 ilaa 2019 marka maadaama hadda sanadku uu dhamaan rabo oo qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaadna la diyaarin rabo shirka muhiimadiisu waxay ahayd qorshihii horumarinta qaranka ee markii hore la diyaariyay ee 8aad ee 3 sano loogu talagalay maxaa qabsoomay ilaa hadda marka waxyaabihii qabsoomay la soo bandhigay si wanaagsanana loo soo bandhigay dowlad goboleedyadana waxay uga qayb qaateen qaab aad iyo aad u qurux badan marka waxaa la rajaynayaa in qorshaha horumarinta qaranka ee 8aad in sanadkan gabagabadiisa la soo gabagabeeyo bisha 12aad waxyaabihii ka soo baxayna qaybihii ka dhinaa in la dhameystiro waxay noqonaysaa in qaybta ugu dambeysay sanadkan lagu soo bandhigi doono haddii Ilaahay ka raali noqdo marka shirka muhiimadiisa intaas ay ahayd